بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii sideedaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. waxaana inoo akhriyayaa walaalkeen Mustafa Xaaji Ismaaciil Haarun. alusufu waxay ahaayeen rag degay sufat almasjid oo ah masaajidku markii hore qibladiisu waxay ujeeday bayt almaqdis, dabeetana waa si qiblada lasoo duway 17 bilood ama 16 bilood ba xaggaa loo tukanayay. kadib baa lasoo weeyey qiblada lasoo duwo kacbada la yidhi soo tukada. xagga qiblada masaajidku markaa derbi buu ku lahaa teetan, teedkii buu nabigu yihi saqaf soo saara, saqaf yar markii xaggan looga soo jeestaa saqaf la saaray. waxaa laga dhigay markaa meel dadku uu seexdo, dadka aan hoyga madiine ku lahayn, gaar ahaan saxaabada si soo hijrootay aan waxba haysanin iyo dadka wufuudda nabiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam ee wufuuddii islaamika ama diinta soo galaysa ama imanisay, ama qofka socotada ee qariibka ee muslimka ee yimaada intuu magaalada kala qabsanayo meeluu ka degayo meeluu degalay ahaan jirtay. على كل حال مدينة waxaa soo degay baan leenahay dad badan oo saxaabo aan waxba haysanin iyo koox hore u deganayd oo ah kooxdii ansaarta ahayd ee iyagu magaalada degaanka ku ahaa. maadaama uu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam dadkan mujtamaca kan cusub qaab dhaqaale oo u caawiyana muu haynin, wuxuu bilaabay inuu ninba nin la walaaleeyo, inuu la walaaleeyo. daartii gurigii lahaa Anas ibn Malik baa la isugu keenay dadka, dabeetana muhaajiriintii iyo ansaartii 9 nin baa halkaa lagu walaaleeyay baa la yidhahdaa. 45 muhaajiri iyo 45 ansaara la isku soo daray oo laba loo walaaleeyay. walaalnimadani maxay kaga gedisantahay walaalnimadii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay wadaagayeen? waa mid kasii gedisan, waa walaalnimo dhiigga ka sokaysa. wuxuu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam inuu baro mujtamaca islaamiga ahi asirat alcaqiida inay tahay waxa kulmisa dadka kan, waxaa muslimka kulmiya inaanu ahayn midab, af, luqo, qabiil, meeluu ka dhashay, meeluu degan yahay, ee waxa kulmiya inuu noqdo mabaadi'da ay rumaysan yihiin. waayo inta kale ma dooratid adigu, afka aad ku hadlayso waa meeshaad ku dhalatay in afkii lagaga hadlayay, midabka aad yeelanaysana waa midabkii reerihiinu inta badan lahaayeen. ma waxaas waxaad dooran karta maaha. dadka waxaa isku xidhaa inuu noqdo wuxuu qofku doorasho u yeelan karo oo ah diinta iyo caqiidadu raacayo. islaamku wuxuu nabigu sameeyey markaa mujtamac aan qoomiyadii walaalayn oo loodhan baxdeena reer madiina laisku yidhaha reer yasrib baynu nahay maaha. waxa isu keenay qabiil maaha, waxa isu keenay waa diinu. mujtamacii koowaad ama dawladii koowaad ee islaamiga ahayd waxay ka dhalatay inay noqdaan dad diini ay isu keento. walidaalika carabta agtooda waxa aan ahaan jirtay in qabiilku iyo casabiyad iyo tollaydu inay aada u xoog badnayd, dhaqan aada u weyna inay ahayd. si dhaqankaasi loo tirtira waxa la yidhi waxa la sameeyey walaalnimo ka sokaysa tii dhalashada. oo waa maxay? waxa la yidhi iyadaaba la isku dhaxlaa. walaalnimada 45 kan nin iyo 45 ka 9 kan uu nabigu walaalaynaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid dhaxalkana la leeyahay. kuwaad dhashay kuma dhaxlayaan, waxa ku dhaxlaya kanaad walaalaha rasmiga lagaaga dhigay. si mujtamaca kani uu isugu xidho ugu dambeeya ilaahay leeyahay maxay? wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin. aayaadkaasi ku soo aroray suuratu anfaal ayaa ilaahay subxaana watacaala ku nasakhay mas'aladii dhaxalka walaalkan inay isdhaxlaan. ama mujtamacu intii koowaad ee isku xidhnaa waxa la yidhi iyagaana isdhaxlaya. walaalnimadan waxaa la rabay in la sameeyo mujtamac cusub oo aan la odhan badhna waa laajiyiin, aan loodhan laajiyiin looma bixin islaamka, muhaajiriin baa loo bixiyey. lama odhan reer maka laajiyiinta cusub ee magaalada soo degtay ama soo galeeta laguma sheegin, ee waxaa lagu sheegay muhaajiriin. waa lafdi ka gedisan alfaada la isticmaalo. walidalik saa daraaddeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadan kooxood wuu walaalayay. walaalnimadanna waxaa idinkaga filan axaadiista saxiixun qaar kamid ah soo qaato. waxaa idinkaga filan ee walaalnimaduu nabigu ka dhexaysiiyey calayhi salaatu wasalaam. masalan sacd ibn rabiic saxaabigii la odhan jiray ansaarta ahaa iyo cabdiraxmaan ibn cawf 10 almubashiriin ninkii ka tirsanaa ee muhaajirka ahaa. labada nin waxay kamid ahaayeen markii laba dadka la isugu daray ee labadii la walaaleeyey. xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay labadaa nin markii la walaaleeyey ayuu sacd ibn rabiic wuxuu u yeeray cabdiraxmaan ibn cawf. wuxuu ku yidhi inii aktaru lansaari maalan. cabdiraxmaan waxaan ahay
nimanka ansaar marka la isku daro ragga ugu xoolo badan labaan kamid ah laba haweenana waan qabaa maanta mar haddii layna soo walaaleeyey hal baan yeelaya xoolahayga labaan uqaybinaya qayb qaado labada haweenena waan kuu geynayaa eego oo taad adigu doonataan kuu furaya marka ay ciddo baxdo guurso waxaan haystay saasun baynu laba ugu kala dhambalanayna maca dumarka labada waan qaybsanaynaa bui saasaan yeelaya halkaasuu isa soo tagay saxaabigii lala walaaleeyey saxaabiga kale qoladan muhaajiriintiina ma ahayn niman xoolo doon ah ee xoolakoodiiba way ka yimaadeen way kasoo hijroodeen hantidooday lahaayeenba laakiin waxay ahaayeen niman ilaah iyo rasuulkii usoo hijrooday iyo diintan inay dhisaan u yimid niman rabay inay dawlad islaamiya meeshan ka tagaan oo diintooda qaataan oo islaamnimadooda ilaashadaan u yimid isma odhan wallahi waa fursade dee xoolahan gunta ka jar iyo islaantan lagu siiyey cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ku yihi baaraka allahu laka fi ahlika wa malik walaalow ilaahay xoolahaaga iyo haweenkaagaba ha kuu barakeeyo suuqa tijaaraduna aniga ige cabdiraxmaan waxaa nin xirfad wata xirfad tijaareed oo yaqaan nidaamka baaca mushtarka markaa ninkan mu is odhanin wallahi maanta ad hanti heshay haddaba adiguna mar haddii lagu jilcay adna intaan dhufso oo kaxayso ee wuxu hi ilahay walaal waxaago dhan ha kuu barakeeyo ee aniga waxaad igeysaa suuqa baaca mushtarka wuxuu tilmaamay markaasi suuqaqa baaca mushtar yahuud baad ka haysataa reer banu qanuqaac suuqoodii buu tilmaamay markaa oo suuqaqa dahabka iyo wax lagu iibiye waaweyn kamid a suuqii reer banu qanuqaac buu yimid maadaama ninkani xirfadan u yaqaanay markiiba waxbuu kala iibibiyo dilaalis buu bilaabo waa kaasi duhurkiiba wuxuu soo noqday waxoogaa akit iyo in samana isagoo sita in subaga iyo in caanaa isagoo dilaalnimadii kusoo helay ayuu soo laabtay cabdiraxmaan ibn cawf halkiibuu ka bilaabay kalahiisii in subaxiina ukalaho sayladiisaas iyo wuxuu soo dilaali kara iyo wuxuu soo samaysan karo soo samaysto dhowr cashaba intaan laga soo wareegin ayuu maalintii dambe nabiga kusoo baxay alayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa soo dhaashaday oo soo barafunsaday cabdiraxmaan ibnu cawf oo aanu dee ka muuqanin raggii kale wixii ka muuqday ayuu markiiba nebigu arkay alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi markaasi mahyam waa yani erey arbeed oo ma shanuk yani nebigu alayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan oo aan sidiisii ahayn markuu arkay ayuu ku yihi mahyam ma shanuk waana cabdiraxmaan o maxaa arrinkaagu waa sidee bu yihi maxaa dhacay wuxuu ilahay rasuulkiisiy aroos baan waan guursaday cabdiraxmaan wuxuu sheeganaya markaa isbedelkan ka muuqdaa waa nin aroosa waan guursaday bu yihi oo gabadh ansaarta kamida buu guursaday nebigu wuxuu ku yihi kam sukta ilayha imisaad meher usiisa nuwatun min dahab bu yihi laftimireed dahabaan bixiyey bu yihi yani cabdiraxmaan waa soo xoogsaday oo dabeetana gabadh buu guursaday oo meher buu ka bixiyey laftimireed dahaba ayuu meher u bixiyey xadiidka waxaan usoo qaadanun inaan tilmaamno idintusiyo walaalnimada nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaliyey saxaabada dhexdeeda inaanay iyana ku kala hunguri qaadan iyagoo iyagu rabay walaalnimo rasmiya oo ansaar aanay istus iyo waxaa ka ahayn oo ilaahay uga markhaati kacay waayo ilahay ba subxaana watacala qur-aankiisa ku tilmaamaya yuxibuuna man haajara ilayh ولا يجدون في صدورهم حاجة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إلهي بوت إليه قوة أنصار قال له هرو دقنا المؤمنين تهرواها وحي تشعلين با إلهي كل سوء جرودي وما أركيان لاتين يعني من الخيان يعني وقته beel cusub oo la soo degtay waxa uma arkayaan ee yuxibuun ba ilahay liman haajara ilayh walaa yajiduna fi sudurihim xaajata mima wuxuu waxay siiyeen iyo wax aba yaraati xasbiya hayaana ma jirto bal ilahay wuxuu leeyahy wayusiruuna cala anfusihim walaw kana bihim khasaasa naftooday ka horumarinayaan xataa iyagoo iyagu baahan yani walaalnimo nafqaybsiya oo uu walaalkii ka doorbidayo intuu isagu caruurtiisa iyo dumarkiisa seexiyo uu siinayo walaalkii oo baahan saas bay yeelayaan buu ilahay qur-aanka ugu markhaati kacay tusaalehana waxay idinkaga filan saxaabadii kalena sida yeeshay oo muhaajiriintuna inaanay sodhan waxaa heshaanba urursade iyana halkaas bay taagnaayeen ay rabeen cabdiraxmaan bin cawf uu diidanaa yad wax qaadata inuu marnaba noqdo alyad almuctaa ka wax bixisin buu rabay inuu markasta ahaado walidalik buu muddo yar ku noqday madiinadu caynkaa ku yimi ee lahaa suuqa itusa muddo yar dabadeedna taajir buu kamid ahaa tujaarta ugu waaweyn muslimiinta kamid ah
cabdiraxmaan ibn cawf inta badan muslimiinta waxay yaqaanin inuu ahaa nin maalqabeena, laakin waa ninkaasi intu madiina soo galay isagoo shilan haysanin in yar haddana maalqabeenka ku noqday, ee haddana jihaadka iyo wax walba ku jiray, ee aan adduun ka mashquulin aakhiradiisa. waxayna kaga filan tusaalaha yani halka ay ansaarina ka joogtay waxbixin. aba hurayra xadiidku tilmaamaya isna bukhaari ku yaala. aba hurayra ayaa wuxuu leeyahy bukhaariya muslim xadiidku ku yaala baan rajaynaya. qalat ilansaaru linabiyi sala allahu alayh waalih wasalam aqsim baynana wa bayna ikhwanina nakhiy. ansaarintay nabiga utimi bay waxay ku yidhahdeen ilahay rasuulkiisiyo hantiday lahaayeen waxaa u badnaa maxay? timir, dee timireed, beeraha ugu badana meesha waa timir. waa la ilahay rasuulkiisiyo meesha yaan cid wax isasiitaaba jirin be timirtaba noo qaybi. dee timireedka aynu leenahay ansaarimadeeda inta loo tago lasoo tiriyo oo loo tago ha loo qaybiyo una ansaar iyo qolaba inuuna ku kala tagnaba sida. waayo qofka hadduu kula nooliyo inaad wax siisiiso waxa laga yaaba inuu arko in uu qof baahan oo wax la siinayo, laakin haddii mar kuna lagu kala tago waxa inta lakala qaybsado la kala tago waa laba qof oo siman bay noqonayaan. waxay dhahdeen ansaar iyo muhaajiriin ilahay rasuulkiisa gee timireedka iyagaba kaalay uqaybi. nabigu alayhi salaatu wasalam wuxuu ku yihi qaala la, maya buu nabigu yihi idin qaybin maayo. waxay yidhahdeen marka walaalnimadii soo dhaafta waxay leeyihin xoolo dhan ba noo qaybi ba warku waa imamkaana ku dhamaadeen. wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam maya idin qaybin maayo, xoolihiina haysta. waxay yidhahdeen marka fatakfuna almu'na wanushrikukum fi samra. muhaajiriintiiba waxay leeyihin haddaba shaqada naga qaabila, beertii iyo midhihii iyo wixii annaga iskale, shaqada naga qaabilo nala waraabiya, beertii waraabiya oo ka shaqeeya, wixii kasoo baxana aan qaybsana markaasi. saasay aqbaleen. qaaluu samicna wa atacna. ansaar markay ansaari ra'yiga soo jeedisay ayay muhaajiriinta yidhahdeen maya taasaanu aqbalayna, waxaana siinin aanu xoogsananane beeraha aanu ka shaqayno, dabeetana wixii kasoo baxa. lakin xadiid kale aba hurayra wuxuu ku tilmaamaya haddana ansaar ajarkiiba iyagaa la tegay, nabigaa loo yimi alayhi salaatu wasalaam. waxa la yidhi ilahay rasuulkiisi iyo nimankani dee ajarkiiba iyagaa qaadanaya oo waa maxay? shaqadiina iyagunbaaba soo qabanaya, midhiina hadha waa la wada yeelanaya. shaqadii ay yidhaahdeen shaqada idinku qabta, hadha waxa kasoo baxana aan wada yeelano, shaqada lafteediina iyagunbaa soo qabsanaya bay leedahay. oo waxay nimankii shaqadiina iyaga qabsaday, wixii kasoo baxayna waxbay naga siinayaan. marka ajarkiiba dee iyagaa la tegaya maxaanu samaynaa? si kaloo loogu abaalgudana garan mayno. wuxuu ku yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam la ma dacawtumuuhum. ajarkii insha allahu yani si a uga abaalgudaan waa jiraysaa inta aa ammaanaysaan buu nabigu yihi ee ilaahay u baryaysaan. yani sanaaga dhulka la ogolaya kan baa kamid ah sanaa shukr. qofku hadduu yad kuu galay inaad ugu yaraan aad sheegtid, ugu yaraan aad umahadnaqdid. waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis ku tilmaamayaba man lam yashkur innaasa lam yashkur illah. ninka aan dadkaba umahad celini buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalam allana uma mahad celiyo. idan qofku markuu wanaag kuu samaynaya ugu yaraan jazaka allahu inaad tidhaahdo, ugu yaraan inaanad dafirin nimcadii iyo galladii lagu galay inaanad dafirin. walidalik buu nabigu alayhi salaatu wasalaam uu ahaa cidda ugu xusuus badan nimco loo galo, ilaa xad xataa kuway gaalada u gashay uu u qirayay. wuxuu ku tilmaamayay ibnu mucamkii oday kamida odayadii gaal, waa odaygii aynu shalay sheegaynay markuu mise daraad markuu daaif ka soo noqday ninkii nabiga alayhi salaatu wasalaam magangelyada siinayay ee quraysh lahayd hadday magangelyo tahay waa aqbalayna, hadday diintiisa ad gashay mise waad magangelisay waa magangeliy. ayuu nabigu maalintii beder markuu godka ku guurayay quraysh boqorada madaxyadoodii markuu godka ku gurayay, baktigoodii iyo dadkoodii kalena la xidhxidhay maxaabista loo qabsaday, ayuu wuxuu lahaa maxaabistan iyo kuwan buu lahaa cadiy ibnu mucim ma filayno magaci ahaa, hadduu noolaan lahaa bu i law kallamani, hadduu haaulaa kuwan xunxun hadduu igala hadli lahaa bu nabigu maanta yidhi alayhi salaatu wasalaam cadiy ibnu mucim intuu yimaado waan wada siin lahaa bu nabigu yihi, maadaama abaalku ii galay aan ogaa maalintaasi isagoo gaal ahaaba abaalkaa u galay, gaalnimadiina uu ku dhintay. laakin bu nabigu leeyahy hadduu maanta noolaan lahaa baktigan waan wada siin lahaa o igala hadli lahaa arrinkooda, reer beder waxaan maxbuus usoo qabsaday oo dhan isagaan ku dari lahaa. idan ansaarina saas bay yeeshay. markii dambena maca shaqadii iyagaa fuliyey. markaasuu markay caynka lahaana nabigu wuxuu ku lahaa alayhi salaatu wasalaam inta ilaahay ugu mahad celinaysaan, yani inta iyagana ammaanaysaan, ilaahayna subxaanahu watacaala
u baryaysaan yani waa abaalgudeen. haddaad qofku intuu abaal kuu galo aad weydo waxaad bixiso ama waxaad ugu abaalguddo, awalan waxaa fiican inaad mukaafa'a aadna samayso. muhaajiriinta yidhi mukaafaadii samayn kari weyne maxaanu yeelana ajarkii way wada qaadanayaane, waxa la yidhi u duceeya oo ammaanana. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sameeyey mujtamac isku xidhan oo uu yahay waxa walaaleeya islaamnimo, masaalixda kale oo dhanna laga tegayo. inama almu'minuuna ikhwa saxa ay jirto. ilahi u leeya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aaba'akum waikhwanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan. ay tahay in diin la-aan looga tegaya aabe iyo hooye iyo waalid oo dhame hadday diinta diidaan. waman yatawalahu minkum faulaa'ika minhum ilahay tilmaamayo. qul in kana aaba'ukum waabna'ukum waikhwanukum waazwaajukum wacashiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaratun takshawna kasaadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وحلنا المجتمع كره ونقضي مجتمع أصير له حيث مجتمع وحى حريرية وهي الحب في الله إلهي درتي درس سجعل. أو نبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متكيني ما لقمهل إلهي ولكن لا تشعلاضه وحو نفتي سلتش عليه. أي نقضان مجتمع النبي يقول كان الله في حاجة أخيه، يعني قفكوا انت ولكن باهدي تكتره والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي مجتمع بها إنه النبي آسرده بسكوح الحلي ولو بنيي إن أي سكوح المال. مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خيرا بلغ الإسلام كم حاو خير بدن تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف من نبي الإسلام كم حاو خير بدن وحويان إن راشين كان ضدك قود الصف مساكين يعيد والبا إن سلام تنين ضدك قو آخر ده قف والبسلات ميرا بقرنة سي ميرا بقرنة با يعني مجتمع مسلم كسوي سبع علمه حتى انت التقانون ولقى سلامته انت نبى سكوع علمته لكن قف مسلمان بقرنة لا بعد شهادو خاصور بحنا ولا عشرة سلامته ما نتحدث لو السلام يضد السياقان ومسلمين هالسة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مجتمع أبوها والنبي يقول يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله. هي أحاديث ترى ربنا لا تقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وحاصل نصوصه waxay wada tilmaamayaan mujtamaca kan sidoo nabigu isugu xidhay calayhi salaatu wasalaam. waa dhici karta in qof cadhoodo ama laba xurgufi dhex marto wuxuu nabigu ku saleeyay inaan 3 casho ka badan marnaba cadho ku maqnaan karin. laa yaxillu limuslim an yahjura akhaahu fawqa salaat. 3 maalmood ka badan inaad cadho la maqnaan karin. bale haddaad ka badan la maqnaato maxay la mati sanad haddaad maqan tahay waa ka safki damihi buu nabigu yidhi. hajru lmuslim inaad walaalkaayo muslim sanad afka u buurto tidhahdo waanu saynaa ninkaasoo ma wada hadallo waxay la mid tahay adoo dhiiggiisa daadiyey buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. yani dhiig qof muslimna daadintiisa wax fudud ma waa xadiidkii abi daawud. idan axaadiis badan oo saxiixa nabiga kasoo wada aroortay oo dhammaantood tilmaamaya mujtamaca kani siduu isugu xidhmay. waxaad ka garan kartaa mujtamaca kani iimaanka iyo xubbiga iyo kalgacalku inuu ahaa waxa dhisay. waxaa soo degay aayad qur'aan oo ilaahay leeyahay lan tanaalu lbira حتى تنفقوا مما تحبون. سماها قاري ميسان با إلهي سبحانه وتعالى إلا يا بحثتان مو يعني وحا محي جعشهين أبو طلحة وصارت كمدا مغلي لبيتنا النبي قويمي وحل إلهي رسول كيسي إلهي القرآن كوي حكيري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وناقا قاري ميسان إلا يوحا جعشنا بحسان مو يعني وحا كوشي إلهي يوحا نوش علي حولايك وبيرتم بيروحا الله إله بيروحا وبير متاجك النبي كسو جيدي masaajidka beerintaasi kusoo jeeda waxay ahaan jirtay beerintu nabigu gala calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo dadku ay biyaha laga cabo oo biyuhu u macaanayn jiray oo meel ugu shubi jiray. dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisa iyo qur-aan baa soo degay le waxaad jeceshiin oo bixisaan mooyaane sababa gaari maysaan. waxaan rabaa khayrka alla sheegaya inaan gaadho xoolahaygana beertan weyn ee masaajidka hortiisa ku taallaan ugu jecelay. beertatan inaha sadaqatun lilahi arju biraha wa dakraha cinda allah. waa sadaqo aan ilaahay dartii ula baxay
ilaahay agtiisa inay ii taallo igu kayd ahaataa baanan rajaynaya ee fadachaa ya rasuul allahi xaytu araaka allah, meeshii alle uu ku tusiyo dhig oo bixi. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi dalika maalun raayix yaruuxu yaqdu calayh, waa maal ajarkiisu yani haben iyo maalinba uu kuu socdo. warkaagiina waan maqlay, ilaahay dartiibu inaad ula baxdayna waa yani laga aqbalay. qaad oo haddaba u qaybi qaraabadaada iyo dadka ku dhadhowna si kuwa la siinayana kuwa ha noqdaane. abu talxa wuxuu yihi afcalu ya rasuul allah, waan yeeli. dabeetana aqaaribtii iyo ilmaaderadii iyo dadkii ay tolka ahaayeen ayuu u kala qaybiyey beertii weynayd ee uu bixinayay. yani waxaad arkaysaa aghniyaadii muslimiintu waxay xoole haysteen sida ay ugu qaybinayeen dadka muslimiinta ee tirada badan leh. wamaca kulli dalik waxaan leenahay iyagoo waxaasoo naf wadaaga iyo naf qaybsiya la sameeyey, haddana waxaa jiray uun dhibaato dhaqaaloo tiro badan leh. waayo waa magaalo dad badani soo hijroonayaan oo muslim badani kusoo socdo, oo haddana aan weli aanay haynin wax ku filan. sida daraaddeed baa waxaa samaysmay baynu leenahay ahlu safa oo kale. ahlu sufa waxaynu nihi waxa weeyaan waa dadkii muhaajiriin u badnaa, midhada asaarana waaba la sheegayo meesha degi jiray. laakin waa niman runtii iyaguna taarikh dheer leh, waayo waa rag ku caanbaxay zuhdiga iyo waraca iyo cifada iyo dhowrsoonaanta iyo cibaado. waa rag in badan oo kamid yahay adduunka ay ka door biday cibaado iyo aakhiro. dadkan maka wada madiine soo wada yimid dad wada xirfadleeya may ahayn, oo markiiba xirfad ay ku shaqaystaan wada gelinayay. waa reer makina dad tujaaro u badan bay ahaayeen, tujaaradiina dee maalkii laga yimid. ninka taajirka inta ugu badan le dee nin aad wax u garanaya sida cabdiraxmaan ibnu cawf oo kale markiiba suuqa intuu isagu gala wax samayn kara mooyaane, inta ugu badan le tijaaradu dee raasumaal bay ubahantay. hanti aad dee ku tijaariso wax ku rogrogtay inaad hayso waa iska adagtay. ragga dee midmidhiya dhifun ba intuu halkan ka bilaabo dilaalnimo kasoo saaro markiiba kori kara, laakin mujtamac dhan oo soo hijrooday farsamada ma wada garanayaan. taasi waxay abuurtay inuu mujtamaca haddana ku jiri karo dad badan oo aan hanti haysanin. nimankaasi waxay deganaa jireen ahlu safa la odhan jiray saidka nebiga dhabarkiisaasi. waxaa lagu tilmaamaa xawaalay 70 inay meelahaasi deganaan jirtay. waayo exactly tira rasmiya lagama hayo, laakin dad badan. waayo waa meel marka wufuudi timaado ama dad cusub yimaado na dadku uu badanayo. marka dadku magaalada ula yaro qabsadee cidi meelowde ay ka baxda halkana uu dadku dee yaro yaraanayo. laakin waa meel dad foqoro oo muslimiin deganaan jireen, oo ay ka muuqato in badan inay raggaasi ahaayeen raggaan xataa maryo fiican haysan, go qura ama maramaro qura. rag xataa la yidhaha maradooda dhudhunkaba umay gaari jirin. markuu halkan luqunta soo sudhiyo inta tan rag badan ay ka khajili jireen mara la-aan daraaddeed inay dabadaba soo marmaraan meelahooda inay ka joogjoogaan mooyaane. laakin waxaynu dareemaynaa haddana nimankaasi inay ahaayeen niman aada u cibaado badan, aada u alla kacabsi badan, dagaalada galoo jihaatama, hantidoodu ay aada u yar tahay. ragga badh gaajadu ay ka gaadhi jirtay inay gaajo la dhacaan oo miyir beelaanba. abu hurayra waa kii lahaa intaan gaajo dhaco oo miyir beelo ayay dadka badhmoodi jireen bu yidhi inuu jini igu jiro, markaasi halkaa luqunta iga saari jireen bu yidhi adinka iyagoo isla jin baa ku jira waxbay rafrafan quraan iyo wax lagu akriyo. gaajaana la miyir beelsanaa bu leeyahy. yani waxaad garanaysaa markaa dadka kan sida ay baahidu ragga qaarkood meesha ay ka gaari jirtay, haddana inay ahaayeen dad dhowrsoon oo kamid a raggaale ansaar hantidiina haysta kulu tilmaamayo kamid ah, ama dad dhowrsoon oo kamid a kuwa ilaahay qur-aanka uga markhaati kace leeyay lilfuqaraai aladina uxsiruu fi sabiili illahi la yastatiicuuna darban fi lard yaxsabuhum ljahilu agniyaaa min atacafuf tacrifuhum bisiimahum la yas'aluuna annasa ilxaafa wama tunfiquu min khayrin faina allaha bihi calim. ilahay marka warramay dadka wax la siinaya wuxuu tilmaamay inay kuwa kamid yihiin fuqaro ilahay dartii u xidhmay oo hantidoodi iyo xoolahoodi iyo wuxoodii ka yimo usoo hijroodo halka jooga, oo laa yastatiicuuna darban fi lard awoodi kari waaye, laa yastatiicuuna darba inay dhulka tijaareeyaan oo waxoogsadaan yeeli kari waaye. yaxsabuhum ljahilu agniya, haddana dhowrsooni waxay ka qabaan baa ilahay yidhi ninkaan xogtooda hoose ogeyni dad waxaystuun buu moodaya inay hani yihiin un baa la moodaya. waayo caado may ahaan jirin dadkii muslimiinta inay dowrsadaan.
caadana may ahaan jirin dadka muslimiinta iyagoo gaajo lama yirbeelaya inay wax sidaa u socdaan. dhanka kalena caado may ahaan jirin qof muslimi inuu seexdo isagoo walaalkiiyo muslimi dhankan ku gaajaysan. walidalik baa kooxda tan ilaahay wuxuu leeyahay yaxsabuhum aljahilu aghniya, kuwa waxaysta ghani bay moodi jireen min atacafuf dhowrsanaan daraadood baa ilahay yidhi. laakin baa ilahay haddana leeyahay tacrifu bisimaahum, calaamadahooda ad ku garanaysaa baa ilahay haddana leeyahy. de qof aan waxba haysanin inkastoo isasturo haddana waad dareemi kartaa un qofkan inay ka cas tahay ama inaana waxba haysanin. lakin ilahay wuxuu leeyahy laa yas'aluuna annaasa ilxaafa, dadka wax kuma weydiistaan iyagoo ku celcelinayo noo dhiibaa leh ee wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim baa ilahay leeyahy. walidalik buu nabigu alayhi salaatu wasalaam in badan lahaa bilaash looma odhan axaadiistana maqashaan طacaamu litnayn yakfi talaat, yani waa raggu markuu sii caraabayo midhmidhka guriga leh ayaa la tilmaamayo raggan inay wax kasii kaxeeyaan. markaasaa uu nabigu lahaa raashinka midkuna labuu ku filan yahay, kalabaduna 3 buu ku filan yahay. cusumad maad karin waxna maad karin, waa intii yarada islaanta ay kusii samaysay ayuu nabigu leeyahay mid kusii faralaab waa iskaga kii filaanaysaay. markaasuu nabigu uu tilmaamaya طacaamu lwaxid yakfi inayn ama طacaamu lithnayn yakfi alaaan, tan uu nabigu tilmaamayo. axaadiistan oo dhami ragga kan bay ku socotaa. waana kuwa ilahay leeya wasbir nafsaka maca aladina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajha, waa ragga aan waxba haysana in badan la tilmaamayo. ragga kani aad bay u badanaayeen, duruufaadkoodana waa kala gedisnaayeen, waktiyo kala gedisanna waa noolaayeen. lakin kaasi waxaynu leenahay cumuuman wuxuu ahaa mujtamacii reer madiina ee uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhisay. waxaynu markaa u bilaabi doonaa mujtamacaasi dadka kale siduu ula dhaqmay, ama ha noqoto heshiisye la galay ama ha noqoto dagaalo la galay, oo inta badan siirada dadku waxay u yaqaaneen un dagaaladii uu nebigu galay ee ah isaga iyo mujtamacii gaaleede kale. laakiin runtii daraaso fiican waxa u baahan, oo lawla aanan ka cabsanayn daalitaankiina u baahan daraaso in la siiyo mujtamacan islaamiga gudihiisu si u dhisnaa. intaan lagu ordin un had iyo goor laga warramin un dagaalkii gaalka lala galay. mujtamacan gaalka la dagaalamayay maxaa sameeyey, qaabkuu u samaysmay. haddaan mujtamacan lahayn gaal cidina iska dhicin kari mayso, lakin gaal waxaa la iska dhicin karaa marka mujtamaca kan uu noqdo kii la sameeyey ee la dhisay. qaabkuu nebigu u dhisayna runtii waxay u baahan tahay in badan la daraaseeyo. wallahu alam. waxaynu ku jirnay siiradii nabiga alayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine usoo hijrooday iyo unkitaankii uu unkayay nabigu alayhi salaatu wasalaam madiina mujtamacii ku noolaa. waxaynu kasoo warranay mujtamaca madiine ku noolaa iyo dadku u qaybsanaa, oo nidhi wuxuu uqaybsamaa carab isugu jirta mushrikiin iyo kuwa islaamayba, iyo waxaynu nidhi yahuud. carabtuna waxay ukala qaybsanaayeen baynu nidhi kuwa muhaajiriin oo nabiga alayhi salaatu wasalaam la socday, iyo ansaartii u badnayd aws iyo khasraj ee magaalada sii deganayd. madiina duleedadeeda iyo agagaarkeeda iyo gudaheeda qaybo kamida waxaa deganaa baynu leenahay dad kale oo gaalo ah oo mushrikiin ah. waxaynu ka hadlaynay markaasi qaabkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey mujtamaciisii koowaad. waxaynu kusoo jirnay markaa inagoo tilmaamnay siduu nabigu u walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii, gaar ahaan ansaartii iyo muhaajiriintii. takwiinka mujtamaca madaniga markay ka warramayaan culamadu in badan waxay sheegaan, culamadii hore waxay odhan jireen alkitaab aw saxiifa ou nabigu qoray calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan. culamada dambe mucaasiriintiina had iyo goor ay ku tilmaamaan iclaan dastuur almadina ama almucaahad ama iclaan dastuur eray casriyo noocaasi ay adeegsadaan. waraaqda tan la tilmaamaya waa waxa ka warramaysa heshiisyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhex maray saxaabadiisa, yani mujtamacoodii siduu isugu habeynayay isugu xidhxidhayay, iyo saxaabada iyo ama muslimiinta iyo yahuud. wasiiqada tan inta badan waxaa wax ka qora culamada ka warrama tanziimaadkii idaariga ahaa ee uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. waxaynu isku dayi doonaa bal wasiiqada marka hore sugisteeda inaynu ka warrano, sida uu soo naqlinay akram dayaal cumari xafidahu llah. waayo wasiiqadu waa wasiiqa runtii aada u muhima, laakin daraasadeeda waxa ka horeeya inay sugitaankeeda la sugo. wasiiqada tani waxay kusoo aroortay dhowr master. koo waxa soo arooriyey maxamed ibnu isxaaq, siiradiisa ayuu ku soo arooriyey. nasiib daro laakin wuxuu soo arooriyey iyadoo sanad wadan markaasi isagu.
isaga waxaa kasoo naqliya inta badan ibnu sayid innaas iyo ibnu kathir labada sheekh waa kasoo naqliyeen. imaam albayhaqi raximahullah isna waa soo naqliyey isagoo sanad u yeelay taa ibnu isxaaq can ariiqii sanad u yeelaya, laakiin wasiiqadu aanay dhamaystirnayn ku saabsan oo qura tii ansaarta iyo muhaajiriinta dhexdooda un ku saabsanayd oo aanay la soconin qeybta yuhuudda ku saabsanayd. ibnu sayid innaas muarikha la yidhahda muslimka wuxuu kala soo arooriyay ibnu khaysama buu ka soo arooriyay iyadoo sanadkeeda wadata. waxaa kaloo soo arooriyay isaguna fi kitaab alamwaal abu cubayd alqasim ibnu salaam ayaa soo arooriyey. waxaa kaloo isla soo arooriyay kitaab alamwaal ibnu zanjawayd oo min ariiqi imaam zuhri ka soo arooriyey. marka la taxliiliyo ama culamaa alxadiid wasiqadan sanad ahaanteeda ama sixadeeda markay taxliilinayaan, sanadadani ma xoog badna dhammaantood marka laisku wada daro. ibnu isxaaq iyadaa sanad lahayn buu keenay baynu nihi. imaam albayhaqi wuxuu soo arooriyey sanadka isagoo uu ku jiro nin la yidhahdo sacd ibn lmundir oo cinda ibn alxajar yani maqbuluna. ibnu khaysama wuxuu soo arooriyey isagoo sanadka uu ku jiro nin la yidhahdo kathir ibn cabdallah oo la yidhahdo waa nin in badan mawduucaad ka arooriya. alqasim ibn cabdisalaam wuxuu soo arooriyey ibnu salaam sanad munqaطica oo imaamu zuhri ku jooga. imaamu zuhrina waa min sigaari taabiciin oo xadiiskiisa waa waxa lagu tilmaamo mursalka, waa mursalka weliba aan xooga badnayn. laakiin cumuuman markaynu eegno heshiiska kan ama mucaahadadan waxyaabaha gudaheeda ku jira qaybo kamid ah iyadoo asaan u dhamayn qaybo kamid a waxaa laga dhex heli karaa saxiix albukhaari iyo muslim, macnaheedu waxa weya qaybo kamid a waa sax. waxaa kaloo qaybo kamid a laga kala dhex heli karaa musnadka imaamu axmed ama abi daawud iyo ibnu maaja iyo tirmidi. waxay culamadu yidhahdaan marka inta nusuusta ee kusoo aroortay kuwaasi unba min xaysu tashriic, yani sharci lagu binayn karaa la adeegsan karaa, waxa kale ma asixin. laakin culamaai taarikh soo akram diya ilcumari uu qabo wuxuu leeyahay taarikh ahaan waa isaga aroorin karnaa. litaariikhna markaynu u eegno waa wax la ixtimaali karo un. usluubka nusuusta xataa u qorantay buu leeyahy markaynu u fiirsano waa usluub yar oo kooban oo u eg cahdigii nebiga sidii wax loo qori jiray oo kale ah. waxaa kaloo yana meesha ku taalla in badan oo culamaai taarikh ay sugayaan inay jirto heshiisuu nebigu yuhuud la galay oo qolo kasta marka la caydhinayo ama magaalada laisku dilaya waxaad arki doonta iyadoo laleeya waxay buriyeen heshiiskii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam. marka heshiiskaasi oo mufasal maaha marka kan, laakiin waxaa meesha ka muuqato inuu heshiisi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay. marka aan soo koobo wasiiqada tan nimanka ururiya masalan waxay ku tilmaamaan ilaa 47 bandi, laakiin bunuudu isku si uma wada qornay. qaybina waxay ku saabsiisan tahay muslimiinta dhexdooda, qaybina waxay ku saabsantahay muslimiinta iyo yuhuudda dhexdooda. markaan ku horeeyo qaybta muslimiinta dhexdooda ku saabsiisan waan odhan karno inta badan malaa iyadu in badan oo kamidi way asaxday, waayo waxaa la helayaa iyadoo nusuus kale kusoo aroortay. masalan bandiga labaad ee heshiiska kale wuxuu dhigayaa annahum umma waaxida min duni innaas, dadka muslimiinta ah ee madiine wada degani inay ummad keliya yihiin dadka kale sokadood. yani wuxuu sheegayaa muslimka waxa isku xidhan ummad ka dhiga inuu yahay raabitat alcaqiida. muslimku qoomiyad iskuma xidho, soomaalinimo ama yamaninimo ama waxka qoomiyad maaha. muslimka waxa isku xidha qabiille iskuma xidho. waxa rasmiga ee ummad ka dhiga ee ummadnimadooda jirsiiya waa caqiidada, yani waa mabda ay aaminsan yihin. sida awgeed iyadoo carabi ay kusoo dhaqantay fikrada qabiil oo qabiilku aada ugu weyn oo wax la isugu hiiliya uu qabiil yahay, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu mujtamaca ka sugo oo ku sugo diintooda oo ka dhigo wanaaga rasmiga waxay isugu hiiliyaan hiil iyo dhiig iyo nafba ku wadaagaan inay noqoto caqiido. dabeetana waxaa la yidhi ummadda muslimiinta ahi dhammaantood ayaa umma waaxida isku ah min duni innaas baa la yidhi. waxaa la rabaa in laga sooco ummadda muslimka umamka kale oo dhan inaanay waxba la wadaagin yahuud iyo gaalo iyo dadka kale o dhan ee muslimku inuu muslim wax la wadaago. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine waktiguu joogay wuxuu ilaalinayay inay taasi xoog usoo muuqato, walidalik bu wuxuu ka reebay xataa inay mujtamaca kale madiine u degan xataa inay u ekaadaan. nusuus badan baa nabiga kasoo aroortay calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya maxay man tashabaha biqawmin fahuwa minhu,
cidda cidi soo ekaysiisaa buu nabigu yihi iyagu ka tirsan yihin si uu u kala tilmaamo inaanay soo ekaynin. ama xadiisu nabigu leeyahy laa tushabahu bilyahuud, waar yahuud ay soo ekaysiinina, waayo inta badan dadku dadka ay dharka iyo midabka iyo wax la wadaagaan ay soo ekaysiiyaan, marka dambe isku dhaqan iyo waxun baa la wada noqdaa. walidaalika nabigu wuxuu rabay in badan inay ka soomaan. waxaynu arkaynaa sidaa awgeed isagoo nabigu le alayhi salaatu wasalaam saxaabada u tilmaamaya masalan yuhuudda khilaafa, yuhuuddu madaxa ma xinaysata idinku xinaysta, yani erada xineeya. isagoo nabigu le alayhi salaatu wasalaam cashuuraa sooma, laakin yuhuudda cashuuraa soontee taasuucaana ku dara, sagaaloodkana ku dara. isagoo nabigu le alayhi salaatu wasalaam yuhuuddu kabaa kuma tukatee kabaa ku tukada, yani caamadeenu way la yaabta haddii nin kaba uu ku tukado, lakin shariica nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya kabaana xataa ku tukada buu nabigu yihi, oo yuhuudda khilaafa iyagu kuma tukadaan. waxaad moodaa in sunna uu nabigu ka dhigay alayhi salaatu wasalaam inaan dhaqanka yuhuudeed oo dadkii ahlu kitaabka ugu badnaa ee la degana magaalada madiine ah inaanay dhaqankooda qaadanin. wax walba markaasuu nabigu wuxuu laha alayhi salaatu wasalaam ku khilaafa si umadnimadoodu ay u muuqato. masalan bandiga 3 ilaa ka 11 heshiiskan kamida siduu sheekha kan usoo naqliyey, waxa uu heshiiskaasi dhammaantii sheegaya 3 laga soo bilaabo ilaa iyo 11. waxa uu sheegayaa qabaa'ilkii carabeed ee ansaarta ahaa qaab dhismeedkoodii inuu sii jiro, laakiin waxa loo yeelay qaabkay u jirayaan inuu sifooyin ku xidhnaado. yani islaamku ma odhan qabailka hala tirtiro yaan qabiil iyo cid magaca sheegatiyo waxa ma odhanin. nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadku waxay ummad ku yihiin inay islaamnimada tahay. ama cashaa'irtan iyo qabaa'ilka kan qabiil weliba sidiisii buu jiraya, laakin bisharti kow laysa mina man dacaa ila casabiya buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam. nagama mid aha sunan abi daawud xadiis kusoo arooray ka dadka ugu yeedha qabiil casabinimadka dadka ugu yeedha, laakiin waxaa loogu talagalay qabiilkan isimkiisan jiraya iyo qabaa'ilkan jiraya inay u jiraan atakaful alijtimaaci waxa la yidhaha, bulshadu danaheeda gaarka ah in lagu ilaaliyo. oo waa maxay? dadka muslimiinta caqiida isku wada xidha, laakiin isgarabgalkii mujtamacu u baahnaaba waxa la yidhi cashaa'irtaa ku salaysnaado. maxaa kamid ah? masalan shareecada waxayna fartay abnaa'i lusra waaxida inay isku leeyihiin xidhiidh gaara oo dhaqaalin gaara isku leeyihin. masalan guriga inta wada joogta, aabbaha iyo hooyada iyo caruurtooda iyo reerka inta kusii dhadhow, intaas waxa la yidhi de masalan nafaqaad bay isugu waajibay fi shariica, biilkii iyo wixii lamida ayaa isugu waajibay. waxaa jira afraad ila cashiirada dadka wada wadaaga, wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam u jirsiyey inay u jiraan maxay? tadaamunka qabaliga inuu jiro. tadaamunkana waa maxay? waa waxaan iminka duwalku inta badan ay qabtaan, insuranckan iyo dawladdu public servicekan tirada badan le ay qabtaan. mujtamaci islaamiga awalka ah reerkaa waxaasoo dhan qaban jiray. walidalik qabiilku wuxuu wada wadaagaya dafci diyaad. masalan cid kamida hadday khata wax u disho, qofbaa qof gacantiisa khata uu ugu dhintay, maaha wax uu kasoo jinaayo u galay maaha. ciddii reerka laga dilayna waxay xaq u leeyihin in diyadii la siiyo. ma insurance baa la tegaya? ma shariica insurance ma jirin. waxaa la tegayaa diyada tan wada wadaagaya maxay? cashiirada tan ama qabiilkan baa wadaagaya, oo caaqilada diyada lagu leeyahay qofka laguma laha. masalan fi shariica alislaamiya haddii qof gaf loo dilo, gaf buu u dhinto, looguma talagelin la dila toalun baa dhacday maqadirta qofkii ugu dhintay, diya waajibtay, diyadiyaa lagu leeyahay qofkan gafka uga dhintay laguma laha. waxa lagu leeyahay cashiiradii, reerkii ama dalkii ama qabiilkii baa lagu leeyahy. waa caaqilada waxa la yidhahdo. wuxuu nabigu cashaa'irtan isugu xidhay masalan inay maxaabiista laga qabsado dagaaladan iyaga iyo islaamku ay wadagaleen, gaalada maxaabiista ay qabato kale inay wada bixiyaan oo soo wada furtaan. waxaa loogu talagalay inay sameeyaan kuwooda baahan inay wax wada siiyaan. bale waxaa laga dhigay masalan xaafadda inta ku nool, nabigu alayhi salaatu wasalaam oo kale maa zaala jibriil yusini bijar xataa zanantu anahu sayuridu. igama tegin bu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam jibriil inuu jaarka intan xaafadda yar inuu ii dardaarmo ilaa aan moodayba inay isdhexli doonaan. yani waxa la rabaa mujtamaca kani si isugu xidhmi lahaa. afraadda alqarya alwaaxida masalan afraadda ku wada jirta, waa ka nabigu ku tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam ma jiro dad meelahoyda oo uu dhexdooda qof muslimi gaajo ugu baktiya ama uu ku gaajoodo ilaa iyo ilaahay zimadiisu waa ka beri. abnaa'i almadina alwaaxida dadka magaalada wada dega xataa waxay leeyihiin qaab takaaful ijtimaaciga isugu xidhaya. masalan zakada
zakada ninka reer masalan hargeysa ahi zakada uu bixiyo waxa xaq loogu leeyahay inay magaalada hargeysa ku baxdo ilaa iyo kuwan ay baahdaan mooyaane looma gudbinayo reer berbera ama reer burcaan looma gudbinayo zakada madiinada tan ay leedahay. وهكذا وحدات يرير مجتمع سانو النبي سوى حديث عليه الصلاة والسلام وحلا وطلق لنا نقطة مجتمع ماشي اسكو حدث. ولذلك باب بنود تشيس كاتيو النبي قالي وصحابنا لك قالي سيدا لك الماما مثلا وحد الماما المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وابن عوف على ربعتهم وبنو الحارث على ربعتهم وبنو صاعد على ربعة قبيل بلصات الماضي ومحل الشيغية كوح ولبا مثلا بيدي يمختي يدي كسيدي ولا بحين شرتين ولا بحين دانطون كو محفوظ كورين يصور فرطان ومعروف يكون صور فرطان ان مركا لغب الابو هشيد كان بندق الصدحية طبنات إلا ككوبيا لباطنات وحيونا كور رميان جرائمته مجتمع كدح دعبه مسؤولية هذا اعتقاد الحاج يعني مدينة ما كنا نقول عليه الصلاة والسلام بوليس نصبينين وما هو بوليس يعيد الله نصبينين مركبة وحكومة لكن وحل أديك سدون مجتمع التكوين كيس قابل اسمه كي مجتمع هو بسنا سادر هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامة إن دك مؤمنين تهتمانتود إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم بنود شريسة مؤمنين متقين تلاقيك عبصنس واحد عن تودو قوة شفتها عدي حد قدبته او ابتغي دسيعة الظلم دسيعة عطية اما عدة الضوانطة حق امر لحينهم عليه والظلمية او اثما من الدنبية او عدوانا او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم والنبي عليه الصلاة والسلام هشيس كان يوحى الشيغية ذكى مؤمنين عدة حد قدفتا إلى ذنك ولا هذا غير مدينة ودوها مؤمنة متقية عدي تنبيلا نلغ وضع النقضة وقف حقان لهين دولية أما واحد ظلمينية أما نبقى سنية إلى المسلمين تبان سكا وضع راعا سيدا أوليس مثلا بندق صديق قوي الله تنادح نبي قلت المامي ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوله قف مؤمنة دله اجنا ينال دله إذا واحدة بيجي نندلة يعني دل عمدي السماية قوة بالولية قوة كوام حي وإلا ساقطه قول الدور الرسية عند ولي الأمر يعني الظلم قبائل كقلا وحكم إذا قفت ليه انت دبرك القليو أيها الله رمي يا وضيض يد الحاجودة والظلم دي قال له أنا هذا قف ديك مسلم قال ذنبي كوغالي انت دبرك الجلسات هذا كول هذا الله هذا ذنبي له دي كان طيب هذا المكاس ونقول النبي عليه الصلاة والسلام قلت المام ايوه من اهوى محدثا قفك الرؤية قفك النوع عاصمية دي كاكل النوع عاسيه هوية اما اوقر كارة الهي ان عدشي ساكركي ساعاتي عرض الهي بايراقي اما كركي ساعاتي الهي كاقبل ما يوحو بحي يوحو قيستة وربنا قلت المام يعني لا يجوز مرنبا محال لقولي وحق لي قفك قف دلي حدي دعضه انت الله سوقفتين مركو لما كان سيو عدي دلك لو قيستي قاعدة لقى قليه اياها مركا دل الدور سيو لبحل ان قفك لو دلي مركا الحقيقيين ودلي دنبي وكو عديي ان ايو دليات ايانا مركا قادنيا اياها تيدانين عفين اياما تاين اياها لو ويديو قبيل لو يدين ما يطانا وظلم انما انك اللي قد اللي انتو سكعرت يا ترغي غير الله هنا ويدعا عيك مولانا وحلا مكاسين يا قضية تنحق له عيدي اللي قد له وريدك هاي عيدي حكيسة هاي عيدي عصبتها عيدي وقفك كان إنا كيسي به قاتل مكاسين يا كاسوه حق له ياي انه يدوان عفيه انه يدوان يعني دي انقاط انه يدوان دي ليه حق بولي لذلك النبي وحولي عليه الصلاة والسلام مثلا من دقاسي ذاك مؤمنين تماشي ودتكن قف مؤمن الدله يجنا يران كدله بل إلا قوض النقضة والله مكسية عدي وعد كدلي وقفك أصير الله بندقه قوض الله بندقه يعني إن دي لغا قاطه أما إن لدله أما إن لعافية الله بندقه وما بنا نبو مركا نبو قفك مؤمن كاثري
wasiiqadatan ee maalin qiyaamo rumaysan inuu qof waxaa geystay uu soo hooyo ama uu u gargaaro ama uu u hiiliyo hadduuse saa sameeya buu nabigu ku tilmaamaya saa wasiiqadaas tilmaamayso fa ina calayhi lacnat llahi waqadabuhu yawma alqiyaama ilahay nacdashiisa iyo cadhadiisa maalinta qiyaamo korkiisa ahaatay ilahayna ka aqbali maayo sarfi iyo cadli toona. idan wasiiqadu waxay sheegaysaa mu'miniintu siday degaan u wada lahaan lahaayeen ay u suurtoobi lahayd inay wada noolaadaan. waxay sheegaysaa inay buulis ka wada yihiin dadka mu'miniinta oo dhimi qofka nebiga galay mid uu la dhashay iyo mid aan la dhalanba in lasoo wada qabanayo. waxay wasiiqadu sheegaysaa walaw kaana waladu axadihim kaada dhashayna ha ahaadee inaad dhanka kale jirto kaada dhashay xataa adduunya ka dembiga geystay adigu safkiisa matidee safka dadka kalaatay ilaa iyo inta dembigaasi la faydayo. wasiiqadu waxay kaloo sheegaysaa qofka mu'minka ee mufraxa mufrax waxay ku fasiraan inuu yahay kii daynku uu culaysiyey ama kii asiirkee la xidhay ama ibnu sacd oo kale wuxuu ku tilmaamaya ninka reerka la noole xilfoodaaka la leh ee walaa iyo casabo midna aan kaga mid ahayn nasabkiina kaga mid aha walaagna kagama mid aha lakin xilfuu kula jiraayo kale. kuwaas oo dhan in la kaalmeeyo oo isna uu reerka saasi kaga mid noqdo wax laga bixiyo ama caaqilada iyo wixii la wadaagay in la wadaago. waxay sheegaysaa masalan bandiga 12aad xilfi axlaafta nooca kana waxa uu bunuuda masalan bandiga 14aad uu tilmaamaya mu'minka inaan kaafir loo dili karin gaalka iyo mu'minka inaan la isu dili karin gaalna inaan muslim looga hiilin karin. wuxuu sheegayaa bandiga 17aad qodobka 17aad masalan dadka mu'miniinta ah nabadooduna inay nabad kula wadatay dagaalkooduna inuu dagaal kula wadayay. yani nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo jamaacada islaamiga hadday dagaal iclaamiyaan inaad xaq u lahayn inaad tidhahdaan wa heshiis baa la gelaya. haddii heshiis la iclaamiyana inaad xaq u lahayn inaad tidhahdo maxay dagaal baa gelaya. ghazawaadkaasi iyo jihaadkaasi wuxuu nabigu iclaamiyaana inuu dagaal yahay wixii kalena in nabad lagu wada joogaya. waxa masalan bunuudatani ay sheegayaan gaaladu inay iyagu isku dhan yihiin dadka mu'miniintina walaaga inay iyagu wadaagaan. waxa bunuudatan kamida masalan in mushrikiinta aws iyo khasraj wixii shirkiga weli kusii haray inaanay xaq u lahayn inay magan geliyaan quraysh yani xarbi baa u iclaansan iyo muslimiinta dhexdooda. markaa mushrikiinta tan aws iyo khasraj ka tirsan ee degan magaalada madiini inaanay iyagu xaq u lahayn inay magangeliyo siiyaan nimanka quraysheed ee muslimiintu ay dagaalka ku wada jiraan. waxaasoo dhame waa waxyaabo wada sheegaya bunuudii ama heshiisyadii muslimiinta dhexdooda loo galay. heshiiska dhanka yuhuudda isagu wuxuu sheegayaa markaynu soo duuduubno in ay yuhuudina ummad gaarkeeda u jirta ay tahay. yahuudda weliba uu sii kala qaadqaadaya yuhuuddu qaar carbeed oo aws iyo khasraj kaliya kuwa ka tirsan laakin yahuudoobay baa jira oo markaasi iyaguna ummadda yuhuudda lagu tirinayo. waxay sheegayaan markaynu soo duuduubno magaalada madiina in la wada difaaco yahuudda iyo muslimiinta iyo waxaan o dhami dawla waaxida bay ku wada jiraan taxta qiyaadati moxamed alayhi salaatu wasalaam. yani dawladdii koowaad ee madiine ka dhalata islaam baa hogaaminayay laakin bulshadu cid walba way isugu jirtay. bulshada mushrikiinna way ku jirtay yahuudina way ku jirtay magaalada la deganaayeen. idan xuquuq waxa loo siinayay in magaalada difaaceeda dadkao dham inuu xaq wada leeyahy in dhammaantood la wada difaaco kharashka lagu difaacayo in dhammaantood wax laga wada bixiyo cid waliba diinteeda inay haysato. oo markay afraad timaado waa laa ikraha fi diin qad tabayana rushdu min alghay. shareecada islaamiga yani dadka diinta laguma qasbo. isagoo qofku yahuudiya ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah isagoo kristan ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah. markay caqiidada fardigaa timaado iyo shacairka cabudiga qofku uu samaysanayo waa laa ikraha fi diin. ama qaanuunka caamkaa markay timaado de waa shareecada sida qaanuunka maanta madaniga xataa reer galbeedka iyo dadka la isticmaala ba sida qaanuunka dawladda ay leedahay waad ku qasbantay. nidaamka baamishta nidaamka dhaqaale nidaamka siyaasadeed waxaasoo dhami waa qaanuun caam oo mujtamaca ka dhexeeya. diintaad doonta haysa waad ku qasbantay in qaanuunkaasi fuliso. ama shaksiga ee hoos marka loo dhaadhicay diinta iyo waxa qof waliba galbeedka maanta markuu joogo wuxuu xaq u leeyahay maxay diintu doona inuu haysto muslima kristan yahuudiya waxa kan.
maaha inay iyaguna markaa ka dhigaan marka la yidhahdo dadka shareecada way ku qasbeen in la yidhahdo diintiina dad ku qasbaan maaha. yani islaamku shareecadiisu waa qaanuun caam oo dawlad loogu talagalay, walidalik kuma xidhna inaad rumaysanta iyo inaanad rumaysnayn, ee waa qaanuuni dawla. qaanuuni dawlana mujtamaca hoos yimaado dhan waa lagu fulinaya. ama markay timaado adiyaanta iyo dadku waxay haysanayaana waxaasi waa laa ikraha fi diin bay shareecadu qabtaa. qofna diin laguma qasbayo ee qof waliba diintiisu haysanaya. lama odhan karo markaa meel hadday siyaadada shareecadu yeelato islaam baa dad lagu qasbay, lama odhan karo, waayo qaanuunka wadcigaaba waa lagugu qasbaya. ee waxa weeyaan islaamku waa qaanuunkii dawladda sharciga ahaa, laakiin dadka ku hoos nooli way noqon karaan dad kristan ama yahuud ama muslima way noqon karaan. laakiin qaanuunka caamka ah ama siyaasiga ama iqtisaadiga ama kan ama waxaasoo dhami waa inu noqdaa qaanuunka shareecada ay tilmaamayso. idan yahuudda waxaa loo tilmaamay inay diintooda hoos ahaaneed haysan karaan, macaabidooda iyo waxoodana inay u jirayso. muslimiinta iyo yahuudda iyo dhammaantoodna in la wada difaacdo magaalada madiina. waxyaabaha iyaga u gaarkaa yahuudeed waxaa nabiga ilaahay uu doorasiiyey, hadday iyagu ula yimaadaan hadduu doonan inuu kala xukumo, haddii kalena inuu yidhahdo diina ku kala xukunta. fain jauuka faxkum baynahum aw acrad canhum wain tacrad canhum falaa yaduruka shaya wain xakamta faxkum baynahum bilqist in allaha yuxib lmuqsitiin ayad baa laku tilmaamaya. waana kuwii waayadii dambe matalan reer banu nadiir iyo reer banu qurayda isqabtay baa la yidhaha. waa laba qabiil oo yahuud kamid ah, laakiin way iskala sarraysiin jireen. mujtamaca yahuudi waa mujtamac categorial u nool, waa mujtamac iskala sarraysiya. xataa imikadan israel waa categorial dadka ku dhex nool. maadaama iskala sarraysiinayeen, reer banu nadiir waxay arki jireen inaanu ninkoodu nin reer banu qurayda udhigmin inuu ka diya bato. yani diyada marka anaga nala siinayo ninka de reer banu nadiir hadii la dilo waa nin laandeeraah waa in diyadu iska badataa, diyada caadigaaba rumaysnaay. markii islaamku uu meesha qabsaday ayay murmeen, dabeetana waxa la yidhi waxay yidhahdeen aan isula tagno islaamka. oo reer banu qurayda yidhi may diyadu wayna dadku sinaadaa oo intaa dadka laga qaado. dabeetana nabiga isula yimaadeen ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam. waa imaamu axmed musnadkiisa sanad xasana qisada kusoo aroorinaya sababtay kusoo degtay aayadan ah wakatabna calayhim fiha ana nafsa binafs walcayna bilcayn. yani inaan naf reer banu qurayda iyo mid la yidhaahdo reer banu nadiir inaanay kala jirin, anafsu binafsi inay tahay nusuustaasi sababa ay kusoo degaysa. cala kuli xaal wasiiqadan cumuumkeeda markaynu eegno waxaa kamid ahayd wasiiqadan ba la yidhaha bunuudeeda inuu nebigu xaaraantinimeeyey yasrib siday makaba uu nebi ibraahim u xaaraantinimeeyey. yani inuu xaram ka dhigay bayna labatayha, inaan dhifteeda la goyn karin, xayawaankeeda la dili karin intan magaalada gudaheeda. heshiiska kan waxaa la yidhahdaa wuxuu sheegayey aynu oran karna ugu horeeya markaasi uu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi waxa weeyaan in cumuuman kow dadka muslimiinta xidhiidka ilahay la leeyihin la xoojiyo. kow masaajid buu udhiso, masjid quba iyo masjid almadani, masjid nabawi. kadibna mujtamaca muslimiinta abuu isku xidhay oo alquwa ayuu ka dhexaysiiyey, walaalnimo, muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey. kadibna mujtamaca muslimiinta ah buu u dejiyey xeer ay ku dhaqmaan oo shareecada waafaqsan, oo ku saabsan umadnimadoodu inay caqiidada ku xidhan tahay, qabailka iyo waxa kale inay takaaful ijtimaaciga hoose ku xidhan yihiin, ku salaysan yihiin, dadka muslimiinta iyadu waaxida inay yihiin, dagaalkooduna inuu dagaal wada yahay, silmigooduna inuu silmi wada yahay. qofka muslimkii cidduu magan geliyo adnaahum kooda ugu liitaa cidduu magan geliyo kooda ugu sarreeyana waa inuu aqbala. yani qof kastoo muslima cidduu magan geliyo siiyo waa la aqbalaya. heshiiskaasi wuxuu kale ku salaysanaa yahuud in nabad lagu wada deganaado, inaanay magaalada wax dhibayana ka geysanin, shareecada islaamiga inay noqoto sulta alculya. wainahu mahma اkhtalaftum fihi min shay fainama raddu ila allahi wa ila muxamadin sala allahu alayh wali wasalam ayaa bunuuda kamid ahaaba la yidhahda. in wax kastoo la isku qabto ay shareecada noqoto wax lagu kala xukumayo. siyaasa alculya meeshu inuu islaamku yeesho, cid walibana inay diinteeda haysato, madiinana in la wada difaacdo. kaasi waa qaacidadii caamka ahayd ee ay ku dhisantay mujtamac ilmadani. waxa markaasi labaad ee uu nabigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam fikradii jihaadiga ahayd, oo intii ay joogeen muslimiintu maka qur-aankii soo degay wuxuu ahaa kufu aydiikum waaqimu salaa. yani qur-aanku wuxuu sheegayay saa alla inoo tilmaamayo shacaarka muclankii waktigaa hore wuxuu ahaa gacmihiina haysta oo salaada ooga.
waxay culamadu yidhahdaan yani asbaabo badan bay ku sababeeyaan mawqifka kan ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala inaan dagaal ka dhicin maka gudaheeda waaga hore waayo muslimiintu marka hore mustadcafiin ba ahayn way yaraayeen ta kale dee haddii dagaal la iclaamiyo guri kasta xabada joogta waa la qaban lahaa una waa tiro aad u yar bay ahaayeen waxa kaloo meesha ku jirtay dadka kan waxa la barayay inaanay naftooda u xanaaqeen diintooda inay u xanaaqaan oo ilaashadaan idan inay dulqaadka in badan bartaan markii dambe ee madiine la yimi ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u baneeyey inay isdifaacaan udina liladiina yuqaataluuna bianahum zulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir ayaadkaasa soo dega ilahay leeyahy waxaa loo ogolaaday kuwa lala dirirayo yani inay diriraan baa loo ogolaaday waayo waa la dulmiyey